الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد. وسورة البقرة أي نكبل بين آيات بقول استحيا كنتم. قال الله تعالى إلهي بأوحل يا أيها الذين آمنوا دتك إلهي رميو استعينوا حق رقار ستان وقرب ستان بالصبر والصلاة صبر كأي صلاة بلا يوينك ككاشرة إن الله مع الصابرين. إلهي وحوه لنا يا بربر تاقين هاي دتك درادي وصبره. ولا تقولوا هوراننا لمن يقتل في سبيل الله دتك لقد لي جهادك أموات ويدنتين هوراننا بل ما يدماننا أحيان وينولي ولكن لا تشعرون ويدان قرنين. آيات waxay hordhac u tahay iyadoo Ilaahay uu nabarayo sunnada iyo soo jiraanka iyo sooyaalka adduunyada iyo sida u soconayso. marka in la imtixaani doono aayaadka dambe Ilaahay uu xusay imtixaanka adduunyada waxyaabaha lagaga gudbi karo waxa kamid ah inaynu ogaanaynu ku dadaalo labada cibaado ee midna sabirka la yiraahdo midna salaada. waa laba cibaado inaad Ilaahay u sabirtaana waa cibaado. waxa kale oo cibaado ah de salaad iyo cibaadooyinka ba weyn marka labada ku dadaalayso waxa ku fududaanaya musiibooyinka iyo balaayooyinka. waayo culayskii fuuli lahaa maskaxda iyo qalbiga ayaa ka degaya. qofku meeshu ka tamariyana maaha jirka waa moralka iyo maskaxda. marka haddaad isqanciso aad degantahay dikrigan ilaahayna aad ku dadaasho waabaad iska degaysa balaadii doontaaba ha dhacdo dhinacay doontaa ka qarxdo shidaba kuma haysataba baba cuslidba. sabirka iyo salaada gargaarsada ilaahay maciyadiisa iyo wehelkiisina waa helaysa. marka inaad wehelka ilaahay hesho waxaad ku helaysaa sabirka iyo salaada. inaad adkaysi musiibada u heshana waxaad ku helaysaa sabirka iyo salaada. waxay isweydiin la qofku hadduu sabri waayo salaadi waayo maxaa jira dee uu silci iyo darxuma ayaa ku dhici doona. sabir la'aantu balaayada miyay kaa dulqaadaysa kaama dulqaadayso balse waad u nuglaanaysaa. markaad nuglaatana baroortun baa kugu sii badanaysa iyo qaylada labadaas baa kugu sii badanaya. go'aamadii kale aad qaadan lahayd iyo horumarkii iyo xalkii wixii oo dhan baa meesha ka baxaya. salaaduna wax weyn weey iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam kaana idaa xasabahu amru salla arrin weyni markuu ku yimaado dee uu tukan jiray. mid faral uu tukanaya hadduu waqtigu ku beegan yahay haddii kalena sunne arrimo way u furfurmayaan. maciyada ilaahay waa maciyatun khaasa wa maciyatun caama. tani waa maciyadii khaaska ahaydoo takuunu bilcawni wannasr. mar hadduu ilaahay ku yidhi anaa ku garab taagan bal qofka ilaahay weheshanaya ee wehelkii ilaahay la jirkii ilaahay haystaa dee ma iilanayo. ilaahay baa toosinaya subxaana wa tacaala. waxyaabaha lagu sabrayaa way badan yihiin. xagga dambe waxaynu ku arki doonaa laba arrimood. waxaad ku sabraysaa cibaadada. waxaa laga sabrayaa xaaraanta iyo dembiga. waxaa lagu sabrayaa jihaadka. waxaa lagu sabrayaa balaayooyinka ku dhacaya. waxaa lagu sabrayaa cilmiga barashadiisa. waxaa lagu sabrayaa dacwadda faafinteeda noloshu dhinac kastaba. marka halkan waxa soo socota jihaadkii waa sabir buu u baahan yahay. musiibooyinka ka dambeeya dhici doona sabir bay u baahan yihiin. kullu dalik noloshuba macna ma yeelata sabir la'aantii. dadka jihaadka lagu dilo ha odhanina way dhinteen way nool yihiin nololaydaan garanayn. sidaasuu ilaahay xusay subxaana wa tacaala. ayaddu waxay ammaan u tahay dadkii mujaahidiinta ahaa ee ku shahiiday dagaalka gaalada. liman yuqtalu ma aha ciddii la diloo dhan maaha laakiin lifaaq buu ilaahay raaciyey fii sabiili illaah. nebi maxamed waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam dee dadkii waa dhimanayaanoo qof wuxuu u dagaalamayaa qabyaalad mid kale wuxuu u dagaalamayaa si loo arko makaanadiisa oo inuu geesi yahay loo ogaado. qaar muuqaal qaar maslaxad yaa jihaadka ku jira wuxuu man qaatala litakuuna kalimatullaahi hiya alculya. dee qofka diinta ilaahay si ay u kor noqoto u dagaalamaya kaasaa
ayaa jihaadka ku jira markuu ku shahiidana xayaata barzakhiya nolol caalamka hoose abu nooriya nabigu hadduu inoo sii fasiray calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa wuxuu ku sheegay dadka shuhaadada ah shimbira cagaaran ayaa ilaahay ruuxdooda u gelinayaa jannada daaqay oo waxay u hoyanayaan carshur rahmaanka tirigya suran ay halkaas u hoyanayaan marka imika inama dhex joogaan oo ma noolo oo way xabaalan yihiin macnaheedu waxa weeye dadka caadiga xabaalan la mid maaha xayaatadoodu waa xayaato qiimo badan ilaahay ku hambaliyeeyay aad iyo aad u fiican oo la tamani karo wuxuu xusay nabigu calayhi salaatu wasalaam si gaar ah inuu ilaahay ula hadlay dadka shuhaadada ah oo uu ku yidhi maxaa u baahantii markay arkeen codsigaa ilaahay u soo jeeday waxay dhahan waxaan u baahannahay inaad adduunkii nagu celiso aanu soo shahiidno intaasoo jeer si darajooyinku noogu kordhaan wax kaloo weydiista baa lay adduunka hadduu ina bani aadam ka yimaado laguma celiyeen arrimahaas waa arrimihii sabirka u baahnaa maxaa kale sabirka u baahan ilaahay baa sheego wuxuu uhi wala nabluwannakum wallaahi buu ilaahay wuu isku dhaartayoo nabluwannakum waanu idin imtixaani doonaa oonu idin balayn doonaa bishayin waxbaanu idinku jirabi min alkhawfi cabsi ah waljuuci gaajo ah wanaqsin min alamwaal iyo xoolahoonu idinka yarayno walanfusi dadkoonu idinka dilo wathamaraati midhahoonu idinka bi'inno wabashiri saabiriin dadka sabraya u bishaaray buu ilaahay subxaanahu watacaala waa kuwee tolow waa kuwa edab noocee leh aladiina kuwii wey idaa asaabatum musiiba kolkay balaayadu ku habsato qaaluu waxay idhaahdaan ma qaylqayliyaane innaa lilaah annaga ilaahay unbaaba iska kaaya leh wa innaa ilayhi raajicuun annaguna isagaanu noqonaynaa hortegaynaa ulaa'ika kuwa edabtaa wanaagsan leh calayhim salawaatu dushooda waxa saaran ammaan ilaahay u ammaanay oo min rabbihim ilaahooda xaggiisa ka timi waraxmatu naxariis baa saaran wa ulaa'ika hum lmuhtaduun kuwaasoo keliya hanuunsan buu ilaahay subxaanah waa dhaar baa ka dhacday sunnaha adduunyada haddaad doonaysa inaad la qabsato nusuustaasaad aada u dhuganaysa aad u dhuuxaysa aad u dhadhaminaysa marka aayaddu waxayna baraysaa ama inaga dulqaadaysa waxaa loo yaqaano almaradu saamit almarad asaamit cudurka aamusan waxay u bixiyeen culimmada suluuga iyo dhaqanka wanaagsan ka warramaa cudurka aamusana dadka ku dhaca muxuu yahay waa atacawudu cala nicma nicmadu ilaahay ku siiyey inay caadi kuu noqoto markay nicmada ilaahay caadi kuu noqoto ee balaayooyinkanoo kaa maqan daraaddeed waxa kaa yaraanaya shukrigiiyo mahadnaqa waad iska caafimaad qabtaa caadi buu kula yahay maalintaad weydun baad garanaysa carruur baad leedahay maalintay kaa dhintaan ayaad garanaysa dunyo fara badan baad leedahay nabadgelyaad haysataa waxaasoo dhani caadi bay kuu yihiin waaba laga yaabaa inaad u qaadato waxaan iska leedahay inuu yahay oo xoog iyo xirfadaad leedahay aad ku heshayba marka nicmooyinkan qofka waaye xagga dambe ka hela ama loo soo celiyo shukrigu aad u badiyaa laakiin adiga weli waanay ku dhaafin oo waad la qabsatayoo taasaa waxay keenaysaa inay shukrigeedii ku dhaafiso marka dhibaatooyinka dadka haysta waxaa ka mid ah inay nicmadii u noqoto wax caadi ahoo intaa aynu wax kastood haysataaba wax caadiyaba ku yihi caadiga waxa looga jeedaa waxaan istaahilin mahadnaq baad u aragtaa wax aad xaq u leedahay baad u aragtaa wax adigu aad kasbatay baad u aragtaa intaasoo dhan markaad isku qancinaysa mahadnaqba ma jirade laakiin marka balaayooyinkan wax ka mida dhirbaaxooyinkooda kugu dhacaan markaasaad mahadda usoo noqonaysa ama aad garanayso dhaar baa ka dhacday ilaahay baa isku dhaarto wuxuu intaasoo balaayaan idinku ridayaaye dadku wuu kala baxayaaye ka sabra ee istirjaacaa sameeye ilaahay u noqda kaasuu bushaaree kaasaa abaalka wanaagsan leh macnaheedu markaas si kale haddii loo dhigo waxa weeye halkan la jooga ama balaayo la'aanaysee ku talagal balaayo maalintay ku qabsato u qaadan waa ay kugu noqon xaawalaydaynu way xikmad badnaayo dad muslimiin ah way mahayno waxay islaamuhu balaayo ama adayga kugu maqantay ama qayrkaa bay dhah soo ma balaayadu meel isma taagto ama adiga maalintaa kugu jiiftaa kugu fadhidaa hadday kaa maqan tahayna qayrkaabay ku maqan tahayoo
wareegaagii un baan weli la soo gaadhin oo sax weeye marka inta ay kaa maqan tahay ay kugu dhicin atacawudu cala nicma si uu balaayada ilaahay kaaga joojiyo ama kaaga yareeyo ugu mahadnaq nimcooyinka haysato markuu sidan qofku u ogsoon yahay sunnada adduunyaduba inay tahay meel aan lagu balaayo la'aanaynin dee marka darbadiisii timaada wuxuu odhanayaa waa doorkaygii maanta maciyaalkii baa dhintay koow xoolihii baan waayey cadowgii baa igu habsaday macabsidii baa timi waa tii la sheegayoo waa markaygii wadawaamul xaali min almuxaal balaayadu inay joogto noqotaana maaha wax jira ee way iska tegi doontaa waqtigeeday qaadan ilaahay buu ugu mahadnaqayaa subxaana wa tacaala ama aan idhaahnee wuxuu la imanayaa waajibkiisa bishayin waa nakirada waxyaabaha keenta waxaa ka mid a carabiga taqliil yaraan marka macnaheedu waxa weeye bishayin in yarun baan idinku ridaya balaayada ilaahay hadday iyadoo inoo soo kabagashatay timaado adhaxda ayayna jabaysa waxa laynagu ridayaa waa wax yarba wax yar bishayin in yarun baaba waxaanaynu ka qaylinaynaaba waa in yarun balaayooyinka aakhira ku dambeeya allah inaga nabadgeliya marka loo eego tan adduunyada waaba bishayin in yarun وايه ولا نبلونكم بشيء إن كستoo balaayada ku dhacaysa adduunyada bani aadamka way kala duwant gaalka iyo faasiqa marka ku dhacdo waa cuquubatan lahu ilaahay uu ku cuqubaynaya qofka muuminka markay ku dhacdana waa ibtilaa iyo ikhtibaar wala imtixaanaya ama dambi baa laga dhaafaya ama daraja lagu dalacaya marka dadkan aad arkaysa darbadaha ay ku dhacayaan labada nooc bay ugu dhacayaan midna waa cuqubo loo soo qadimay oo lagu abaal marinayo sida quraanka meero badan ka akhriyayso midna isaga bay faa'iido u tahay khawfku waa cabsi juucuna waa gaajo labadaas hadiye jeer iska ag dhow marka la qaxo busaaradina way timaadaa nuqsaanta xooluhu mood iyo noolba dadka xoolaha ka dhinta ilaahay baa dila anfusta nafta waa ehelkaaga iyo asxaabtaada iyo ummadaada oo laga dilo thamaraadku waa midhihi oo beeri baa baaya ilaahay baa soo bixiya subhanahu wa ta'ala ibn kathir rahimahullah wuxuu raa tafsiir qariib aan arko sheegaya in xagga cibaadooyinka loo soo celiyo arrimahan oo dhan maadaam cibaado salaada laga soo hadlo cibaado jihaadka laga soo hadlo cibaado qiblada laga soo hadlay marka waxa weey la tubla wala nabluwannakum bishayn ayaanu idinku imtixaanaynaa oo min al-khawf cabsiah cabsi ayaa la idinku ridayaa qofkii markaa uu waqtiga jihaadka cabsado juuc waa gaajo ayaanu idinku imtixaani doonaa gaajani waajibin doonaa waa soonkii la waa gaajo la waajibiyey wanaqsin min al-amwaal waxaan idinku imtixaani doonaa xoolahan idinka yareeyo dee sakadhiiba baan idin odhan si bakhaylkii ay u kala baxaan deeqsi wal anfus iyo nafihi oo iyadana de ku dhiman doona sayn horaba u soo xusnay jihaadkiina ku dhiman doona iyo sida kaleba wa thamaraat iyo midhihi wasa tafsiirka hore caama wa bashiri saabiriin tutalo waa kuwa sifada dambe leh musiibadu markay ku dhacdo waxay leeyihiin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun eraygu muxuu taagan yahay eraygu waa garnaqs ilaahay garbaad leedahay musiibadan aad nagu riday garbaad ku leedahay kuma gardarid waaye inna lillahi annaga ilaahay baa iska kaayale nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la qiimay asxaabta markay musiiba ku dhacdo wuxuu yada inagaba adaabtu waxa weeyna tiraahdo inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma ilaahay wuxuu iska leeyahay wuxuu qaat wuxuu bixiyana isaga iska leh wax walibana agtiisa waqti bay leeyahay marka inna lillahi ma a'ta lama oran akhada baa la soo horeysay wixii uu bixiyay ilaahay haduu qaatay isaga garu leh dadka sirta nolosha fahmay waa dadku nabigu gacmiisa ku rabeeyay calayhi salaatu wasalaam asxaab ridwaanullaahi calayhi Anas ibn Malik erayadaas oo kale lahayd hooyadii Sulaym inanay dhashay baa xanuunsanayay odaygii Abu Dalha la oran jiray asxaabiyaha suuq u tagay inankii oo xanuunsanayo aga aad buka intii uu maqnaabo inanku dhinto meydkiisii habaysay meedho
maray ku duubto meel aqalka dhinaciisaas way dhigtay markii Abi Dalxa yimi isagoo odayaalooto raashin doonayo markaa de xaafadii u soo habeenkii casho tagay inankii ka warramay buu waa xaaladdu ugu xasilanaabay xaaladii oo inanku ugu deganaa ayuu galay تواي هذا عشرة نصيب ولا سجى وضياش وعشية أنا إيادنا واتا يسقر حساء يسكت ديار جرا قال ما بيسميين بق بالإسلام تناس هذي والله أنت هذا أنا أراسك ور مركي وركي دماغي ضدك حافظنا ووسي شكته وحد أنا واحد كنت أنا بعضي أو شيء جاي عيد كلا أو شيء شكته يشتري مركي وركي دماغي كذب أي لا هذا الشيء واحد كور هنتا بدلحو حدي قلا حافظها نوكلا أي نعارية إرجساء أما وحكسوا أمانيسنو ومركا أي هذا نوسو علي أي نوس حريفين وديدنا كور توا قردربي هذا وين كاجي إلهي ورهايو قاتيها قردروني نصبر بيت أنا هذا نحضا أما قيل أما وقادم ويدو عيد أمانة لقى ساقات أمانة الله كان مركي ليري كان أما لقى قاضي وقادم ويدون بعد نقطة يسابت الكي بدي بفريست يسقونه ده وركستان تبين كعقل بدي ساو وصامري سبحي بالنبي قوتك عليه الصلاة والسلام نبي قال ده إلهي بأوحي جيس لك توها يوم ولا سيو جيسي كأوحي الأرن كيا حلا سمايستنار اللياب لبوها إلهينا أروسكيني حلا هايدين بركاية بو بابا الله بركاية إن يركد بين عبد الله إلى إله بيدش سلانت هو كرامات كأولياء إن كيف يترين كان وإن دعاء كل شيء نبي مر لبعضها والدعاء قاضوا التحنيق هي التصمية دي هوصو سماي لأن حنا قاعد تمر له مريج يلا وحكى لنا من با النبي محمد لو جاي ربتي سي شريف قاعد بكو قبطه عن ربتي سي شريف قاعد بدن حنا جو مريو سيدي بكو بركة بيننا كاس بالإسلامية نتيجة لها يواي أما كسر دواني سبب دم بلا كسر دولا ينتهي نسر دواني برورتي ذا بي دان حافظ والله إيمانين با هي برورتي ذا إذا عاد لقى سي مغلية وحين وجد شيء دليل كوساق هذا نتصالياش سلفنا الصالح سبر كذو بضنايه وحين وجد شيء نقول إنا لله أنك إلهي بس كاي مركز هذا سنت أديك أي حولها جاي الكاجبين ولا هاي لي ده هتوقعتي نتكو قبصنيس سجى كسيه السكالة عروة بن الزبير ده الزبير بن عوام ودلي وحكتك المدينة مدحويني مسلمين تشام أيو تجي كان قريبا بهاشتن الله يلعب عك قد عضي عكتك قد عض عشان ده مركا كل عضو قفك الله شره عكت مركو يسجي وتجي راوعي وكو أركين مدحويني وعسومنا أيو دخاتير سوق يراوح الوربلين كانوا ضيقة حنون كيسة هلا يا جو نختار واللي بيوحوا وين لا ترى واشو وسيس عنيس عكتب على ترى سوى نختار كبيا له أيا إن كيو على إن مديسة كم إذا هاي مركا وذا سفر كلا سعودي أيا فرده بدحوينها هي بقصة يرد الحيسي ميشو ديو فرسهم بعض الله ودنها جويو كوك جسي سوى نختار كلا تشيفة أيا اللي كسبيرنا كاجينا دمي مركا سويس كرتين امتحاني هذا وحول إلهي وتدبويل بعد السيسايا ومد باتجي لح نوادي ريبتا واتكم معصنت أفر أدين نوادي سيسا حبط باقوضي صد حوادي ريبتا واتكم معصنت وكا سيدي با مركا وديكو ديكو خلاص إلهي وبركين تيس مركا اكتو حكو هري أيات كسم ردونتا وحد كاما قند ويلي وإنا إليه راجعون وحي شيغي ساه والله سيسو علاه marka adiga jeer qof ka dhinto waxyaabaha isku qalcinaysa waxa kamida wa inna ilayhi raaji'un daadaba ku daba jirada kana hebel baa dhintay Soomaha ama wax ku dhaceen daadaba ku yuga ku jiree ka intaad u barooran lahayd bal horta naftaadaba u barooro ilaadaba sii socdaba adiga aba waqtigaagi soo socdaaye imaam al-Bukhari wuxuu yiri markii saaxiibkii loo sheegay Abdullah ibn Abdurrahman baa lay wudint markaasuu yiri gabay buu tiriyo macnihiisu ahaa ولا وحوري سيدا كل قف لجوجو شيء جاي أتشعله إذا لجوجو ورميه وربو وحوت شو قابل ما أنت أديك لجوجو ورمه وإنا إليه راجعون إلا إذا هذا
soomaad mararka qaar kood ku riyoonin iyadoo aad dhimatay oo la leeyahay allah u naxariisto nin wanaagsan buu ahaa riyadaadii baad siid ayaa moogtay markaa waxaad dadkii baad dhegdhegaysanaysaayoo nin wanaagsan buu ahaa wuu dhintay allah u naxariisto subaad soo toosaysaa mise waad noosha jaanis baaba lagu siiyeyba inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxay ku sharxayaan inaanu ilaahay gardarayn subxaana wa tacaala ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbi wa raxmatu wa ulaa'ika hum lmuhtaduun waxay istaba socdaa musiibadii iyo aadaabtii iyo abaalmarintii saddexdaasaa istaba taagan marka hore musiibadii baa dhacday oo wala nabluwannakum bahed iyo intaa ka dambaysa haddana aadaabtii baa ku xigtayoo aladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun haddana abaalmarintii baa ku xigtayoo ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxmatu wa ulaa'ika hum lmuhtaduun saddexdaasina waa abaalmarinta marka culimmadu waxay u badan yihiin erayga salawaat inuu imika yahay hanaa ammaan min rabbihim ammaan ilaahay xaggiisa ka timi waayo salaaddu markeeda hore waa duco ducadu waa maxay waa baryo dee ilaahay wuu sii baryayaa ilaahay cidda kaluu baryayo wax inoo weydiinayo waa ayo sidaa daraaddeed salaadan ilaahay xaggiisa ka timi ee ilaahay uu ku salliyey awliyadiisa sidaa u sabirtay waa ammaan naxariis hanuun cumar binu khadaab baa sidaa u eegay aayadda markaasuu arkay dee waxaa looga nuuriye waxaan inagula weyn dareerinaa une wuxuu saas u eego wuxuu ihi nicma alcidlaani wa nicma alcilaawa aayadda waxaa iga muuqanaya buuri inay isu dheeli tiran tahay waa laba dhanrar iyo guradhig buuri waa luqaddii miyiga ma garanaysa awrka marka had iyo jeer la hadhuurinayo laba dhanrar baa la saaraa dhinacanna kiintaal baa laga saaraya dhinacanna kiintaal weyn si uu marka aanu u dheeliyin guradhig baa la saaraa in yaroo haaf ah oo luuqa ayaa bartanka la saaraya saddexdaasoo isku habaysan baa markaa la isku xidhayaa buuri markaa labada isu dhigmaa waxa weeyaan buuri salawaatun min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduunna waa tii kale sii xidhaysa buu gibisha u xidhaysa meeshaa abaalmarin weyn baa ka dhacday oo isku qoofalan buu leeyahay mar kale wuxuu lahaa musiibadu cumar hadday ku dhacdo waxba ma yeesha buu midda u horraysa aan waxba u yeelayn horta diintaygama dhacda buu ilaahay wuu iga badbaadiyey diinta midda labaad dee musiibadu markay cumar ku dhacdo kama weyna markay dadka kale ku dhacdo balaayada dadka kale ku dhacdo unbaa dee cumarna ku dhacda midda saddexaad ee lagu helaya waaba abaalmarintan buu maxaabaan u qaylin oo u qaadan waayey buu wahadaa ma aquuluhu